السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa ugaasa qofkan horta hore waa ugaasa maxabuub oo Axmed Dige waxa ay sameynayso bal maanta inay nooga warbixiso. waxaan samaynayaa hidiya dhaqankii raradayadii Soomaaliyeed marka xoogaa majaajilo oo rarada loogu waqtiga la isku dhaafiyana waa marinaya raarkaygo sabool diidow hoyal waqansu salladale googosow hoyal waqansuuqa lagu dhiginay hoyal sumbaraarta ku ridanay hoyal sawir cagaa kula dhiginay hoyal yaa sameeyey lagu oranay hoyal. haye maasha allah maxaa kaloo noogu daraysaa markii oo raarkan la sameeyo maxaa xagee lagu xiraaya marka kabaadikan waxaa lagu xirayaa aqalku 7 shay oo aqalka laga dhiso ka mid yahay. haye marka dheegsaar baa la yiraahdaa kan waxaa yiraahdaa dheegsaar. toddobadaas marka noo sheegi kartaa magacyadooda ay ka mid yahay kan mid waxaa la yiraahdaa daroof. haye xagee lagu xiraa marka meesha u hooseysa lagu xiraa aqalka geeska aqalka hoostiisa hoose. haye ka xigana waxaa la yiraahdaa feeragash feeragashi oo xageebu feeragashi guna galaa docda aqalka geeska docda lagu dhisay. haye kanna dheega saraa lagu dhisay. haye dheega kalena waxaa lagu dhisayaa mid labaad oo dheegsaar kale la dhaho. haye dhexdana mid kala saaray waxaa la yiraahdaa dulsaar. haye saddexda raar oo dusha u sareeya laba waa saddexda sare saddex waa kuwa sare labada geeska 5 soo maaha labada daroof 6 midka dabada lagu xiro 7 iyo wax lama la yiraahdo aqalka ku kooban yahay lamo intiisa kalena waa lool iyo qabax. waa lool iyo qabax. afar dhigood baa loo taagaa afar saraa loo taagaa 12 udub baa loo qodaa. maxaan ku yiraahdaa udbaha dhigaha dhexda markii la taago udbaa lagu taagaa. aqalmada Soomaalida waxay ku mahmahdaa aqalma joogsado hadaan udub dhexaad ku jirin. marka hidadeedu waa sida maasha allah waxaan ku weydiiyey dhulkan wax kuma arko oo caws ah oo baxaya xagaad ka keentay cawskan mashruucyo nooga baxayo lagu ooda aan ka soo guranaa. oo waxaa jira shirkado lagu baxo oo laga soo gurto waa la ganacsadaa. maasha allah dalkayaga ka mid tahay. wax dibadaha idinkaga yimid maaha waa dhulkayaga hooyuu nooga soo baxay. marka hadda magaalada aynu maanta joogno waxaa weeyaan Bacaadweyn. marka ma Bacaadweyn meel ka tirsan ayaa uu awskani ka baxay oo laga soo jaray maya gobolka gaalkacyo meel ka mid ah gobolka gaalkacyo meel ka mid ah waan ka soo guray. waxaan ku weydiiyey halkan maxaad ku samaysay sidee baad halkan u samaysay halkaas geeski weeye geesmar baa la yiraahdaa waa meeshii raarku waxa la rabaa difaac inuu ka helo sida aqalka jambiga loogu adkeeyo maaragtay waa saas oo kale marka waa jambigii weeyaan raarka oo waxa la rabaa cawsku inuusan halkaa ka fagmino xoolaha iyo anagu xoolahan dhaqanaa xooluhu iyo inaysan cunin baa la rabaa marka xarka iyo baa lagu warsheeleeyaa adigu halkaa waa laga qurxiyaa. marka waxa halkan aad gelisay waa xarko marka xarga maxaa midabka u yeelay xarkaha waa kala dhaa loo kala gelgeliyaa si raarku u qurux badnaada laga wada. marka midab baad gelisay midab ayaan dhowna waxaan ku bilaabayaa duntii oo kala dhaa adigu buluug madow casaan noocyadaas. marka insha allah haddii ilaahay yimaado hadda waad aragteen sida rarada sida loo sameeyo weeyaan soo harar lama dhaho hararka sida loo sameeyo ama rarada sida Soomaali qof walba u yaqaan qof walba deegaankiisa moogtay uu laafiyay Soomaa. marka maanta waxaanu ka duubnay intan yar ugaasa oo nooga warbixisay waan dhaqankeennii Soomaaliyeed inuu soo noqday oo uusan nabad guurinaya dadku halkaas kala soconaya waa anigoo samsam ah hadda ka hor waxaan ku waxyaalaha aan
ku arko haweenka Soomaaliyeed oo aan hidaha iyo dhaqanka ah ayaan wax idin ka soo duubi doonaa. marka waa barnaamijkeennii la soco Samsam sanadaba ha qaato laakiin la soco Samsam mar un buu soo gelayaa YouTube-gayga. haddana waxaan halkaa ku macasalaameynaa ugaasa maxbuub iyo falkadeedii muxuu ahaa hararkeedii. qaybta kale markay bilowdo haddii aan la joogana waan idin soo gelin doonaa marka ay midabada kala gelinayso si ay ula socotiin kolba hararku intuu marayo. intaas ayaan barnaamijkeenu kusoo gabagabaysanaynaa. haye ugaas adiguna maxaad leedahay, maxaad ku macasalaameynaysaa? insha allah kulankeena dambe haddii nasiibkeenu la kulmiyo isagoo intaa kasii qurux badan baan rajaynayaa inaan kusoo daro isaga iyo maaragtay wixii kale oo faleeno hidiya dhaqankeennii ciideenu hooyo aynu ku naqaanay ku dhaqan jirnay oo ku dhisan jirnay. maasha allah gabdhaha Soomaaliyeed baa loo yaqaanaa inay hidadooda hadba soo celceliyaan. marka waxaan rabaa si aan hidada iyadu u gooyin dhulka iyagu hanaqaad u helo insha allah haddii ilaahay idmo. maasha allah waa haddaba intaasaan idinku macasalaamaynaynaa. wixii nagu soo kordhana waa dee la soco ugaasayba sheekadu isku bedeshay, la soco Samsam la soco ugaasay sheekadu tahay. marka ugaasaynu la socon doonaa wixii hadda ka dambeeya. waxaa laga yaabaa in barnaamijyo kale aanu helo ugaaso ay wax ka qabanayso oo dhaqankii ku saabsan oo markaas idin soo duubeynta yar aan la joogo anigu aan martida u ahay. intaas aan idinka tegay aad baad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waan ku ducay adoob ku daryeel adoo markuu mashxaraad adigri culimadahay damal waxaa dhadaan hadda kaamin ahad duqoobin ahad duloobin ahad dugoobin haddagaagin haddabeesho u hadaali daljir waxaa dhahdaan hadda kaamin had duqoobin had